السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نمان أصحابتنا قدي وحد كسو دباتان برامج كعياراه ومالين مسبتي التاريخ ذا إيكو أستيسنتا اللحظة جون سنة دلبكون إي لباتنكا qodobada aan soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doonta naadiga Dayma Same oo shalay 10 lama ilowaan ah u dhigtay kooxda kubadda cagta ee walaalaha ee Serbida ka tirsan magaalada Johor kadib markii ay booqdeen deegaanka Dayma Same waxaan kaloon eegi doonaa naadiga Barcelona oo danaynaysa soo qaadashada Mirlo Pjanic iyo Lautaro Martinez kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo doonaysa in ay soo qaadato laacibka Timo Werner wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa suuqa kale iibsiga waxyaabihii wargeysada iyo wakaaladaha caalamka ka diiwaan geliyeen iyo waxyaabaha maanta ugu hadalhaynta badan leh oo ay hadalhayaan wargeysada caalamka Liverpool oo doonaysa in ay laba xidig oo kooxdeeda ah ay ka saxiixdo heshiisyo aad u xiiso badan Chelsea oo ka faa'iideysanaysa diidmadii Liverpool ay diiday Timo Werner naadiga Manchester United waxa ay doonaysaa inay soo qaadato laba laacib oo kala ah waana laacibka Sancho iyo Philippe Coutinho qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan waa mar kale iyo ciyaaraha aan ka horeynay naadiga Dayma Same ayaa shalay martigelisay kooxda kubadda cagta ee walaalaha oo ka dhisan magaalada Johor kooxda walaalaha ayaa booqatay garoonka ay ku ciyaarto kooxda Dayma Same iyadoo halkaas ay ka dhacday ciyaar aad xiisad iyo xamaasad badan u lahayd Dayma Same ayaa ku raaxaysatay naadiga kooxda kubadda cagta ee walaalaha iyadoo 10 lama ilowaan ah dhabarka loo saaray sidoo kale intana ay ka soo hayaameen garoonka Dayma Same iyaga oo leh geesiyo nin ku gafi ma guuleysaha guusha waa dhab guul darada waxa ay ku bartaa guushan waxa ay ku bartaa guul daro waa oraah kamid ah sida taageerayaasha Dayma Same ay oraahnaayeen in hadii aynu eegno markii ay ciyaarta soo dhamaatay ayaa waxa jiray in asxaab commentiyo fara badan soo dhiiftay kuwaas oo ka hadlay ciyaarta Dayma Same iyo walaalaha in walaalaha waxay ismoodeen in ay liwaax yihiin laakiin wala dajiyay ayaa commentiga ku qornad iyo hadalhayn kale oo aad u fara badan in Dayma Same ayaa waxa lagu tiriyaa kooxaha ugu xoog badan la tuuladaasi Dayma Same in sidoo kale inta waxa uu ciyaaray in ciyaariyahan Cusey oo asagana shalay wacdara u shiday in kooxda Dayma Same in hadalhaynta ugu badan ayaa waxayna ahayd in naadiga Dayma Same ay 4 iyo eber dhabarka ay u saarisay kooxda walaalaha in dhanka kale inta dhawaan ayaa la furay koobkii Serie A Soomaaliya Premier League ee ka soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya in koobkaasi ayaa ahaa mid aad xiisad iyo xamaasad badan u lahayd iyadoo kooxaha horyaalkaasi ay bilaabeen in ay ciyaaraan in waxa horyaalkaasi difaacanaysa naadiga Kenya Horseed iyo Banaadir Sports Club kooxahaas oo inta badan soo bandhiga qaab ciyaareed aad u sareeya iyagoona falsafada ciyaarta ka dhiga mid aan caadi ahayn naadiyada heerka koowaad ee Soomaaliya Premier League ayaana kooxa inta badan ku baashaal horyaalka iyadoo ay sidoo kale ay jiraan ciyaaryahano ajaanib ah oo ka tirsan wadamada Ghana, Gabon, Uganda iyo Ethiopia ay ka ciyaaraan horyaalka Soomaaliya Premier League ayna tahay horumar aad u balaaran oo ka soconaya Soomaaliya Premier League sidoo kale inta waxa soo gabagaboway ismihii Stadium Muqdisho halkaas oo ahaa garoonka ugu weyn qaaradda Afrika iyadoo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ay gacan weyn ka geysatay sidii uu u hirgali lahay ismaha garoonka Stadium Muqdisho halkaas oo la soo gabagabay oo la soo dhisay qaybaha dabaalka orodka halka kubadda lagu ciyaaro iyo sidoo kale inta basketball iyo kubadda handball loo yaqaano iyo dhammaanba taageerayaasha halkii ay fadhiisan lahaayeen in sidaad u jeedaan muuqaalkan waa Stadium Muqdisho oo bilicdiisii ay aad u soo noqotay iyadoo sidoo kale intana ay wararka sheegayaan in uu martigelin doono in koobabka kala duwan ee ka dhici doono gudaha magaalada madaxda Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo kamid yahay maamul goboleedyada degmooyinka iyo horyaalada kala duwan in sidoo kale inta hadii aynu eegno ciyaaraha Yurub in naadiga Chelsea ayaa lagu soo waramaya in ay ka faa'iideysanayso in heshiis ay ku qaadan doonto Timo Werner ayaa la shaaciyay in uu
iskaga hartay naadiga Liverpool oo xidigaasi doonaysay laakiin wararka ayaa waxa ay sheegayaan in naadiga Chelsea Roman Abramovich uu ogolaaday in uu bixiyo aduun lacageed oo aad u qaalisan oo ku doonaya in uu la soo saxiixdo xidigan. Timo Werner ayaa kamid ah laacibiinta aad ugu qaalisan naadiga Chelsea waxay doonaysaa inay xidigaasi ay la soo saxiixato iyadoo doonaysa inay fasaxdo William Petro iyo Olivier Giroud oo ay ka heli karto 48.5 milyan oo euro ah haddii xidigahaasi ay ka tagaan. naadiga kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana hadda la sheegaya in ay ku dhowdahay in ay la soo saxiixato laacibkaasi kadib saxiixii Hakim Ziyech oo la sameysay iyadoona xagaaga dambe ay soo qaadan doonto. dhanka kale naadiga kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa aad u xiiseynayso soo qaadashada Lautaro Martinez iyo Mario Pjanic kuwaas oo ah xidiga aad u waaweyn. naadiga Barca ayaa la sheegaya in ay doonayso in Lautaro Martinez iyo Pjanic ay keento garoonka ay ku ciyaarto naadiga kooxda kubadda cagta ee Barca Camp Nou Stadium. wareegyada qaar ayaa sheegaya in Barcelona ay qarka u saarantahay inay hesho laacibiintaasi iyadoo sidoo kale doonaysa in ay fasaxdo ciyaaryahano kala duwan oo ku sugan kooxda kubadda cagta Barca uu kamid yahay Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Inacio Soumaïd kuwaas oo inta badan la hadalhayo. dhanka kale naadiga Liverpool ayaa heshiis cusub ka saxiixayso laacibiinta kala African Van Dijk iyo Alisson Becker. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso in heshiis cusub ay ka saxiixato xidigahaasi iyadoo isaga hartay baacsigii ay ugu jirtay inay soo qaadato xidiga Timo Werner lagu magacaabo laakiin macalinka Klopp ayaa aad u doonayo in uu heshiis uu ka saxiixo naadiga kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaaryahaneeda oo kala ah Alisson Becker iyo Van Dijk si ay xidigahaasi muddo dheer ay ugu sii sugnaadaan garoonka Anfield ee magaalada Merseyside dalkaasi Ingiriiska. Klopp ayaana sheegay in xidigaha uu daneynay inuu heshiis cusub uu ka saxiixo. dhanka kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa soo qaadan doonto laacibiinta kala ah Philippe Coutinho iyo sidoo kale Jadon Sancho. wareegyada ayaa sheegaya in xidigahaasi ay qarka u saaran yihiin inay la soo wareegto naadiga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Manchester United. macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka dhawaajiyay in ay ka go'an tahay inuu la soo saxiixdo laacibiinta Sancho iyo Coutinho kuwaas oo aad la xiriirinaya inay imaan doonaan garoonka Old Trafford ama maslaxada yariyada oo ay ku ciyaarto naadiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kooxda shiyaadiinta cas ayaana la xiriirinaya inay heli doonto xidigahaasi oo kala ah waa Sancho iyo Coutinho oo ah ciyaaryahano aad u waaweyn oo la xiriirinaya inay la soo saxiixan doonaan dhamaadka xagaagan. dhanka kale naadiga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona xidigeeda Leo Andres Messi ayaa lagu soo waramaya in uu soo gaaray dhaawac aad u fudud. laacibkaas oo la shaaciyay in dhaawacan uu saameyn ku yeelan doono qaab ciyaareedkiisa iyo sidoo kale falsafada iyo sida uu kubadda u abuurayo. xidigan ayaa seegi doono 2 kulan oo aad u waaweyn waana Mallorca iyo kulan kale oo aad u xiisad badan leh. wareegyada ayaa waxay sheegayaan in Messi uu dhaawacaasi uu saameyn ku yeelan karo naadiga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Barcelona. geeska kale Barcelona ayaa wada hadal la furayso xidigan Lionel Messi oo ay ku doonayso inay kaga saxiixdo heshiis cusub oo ay ku doonayso inay ku sii hayso laacibkan garoonka ay ku ciyaarto naadiga Barca. xidigan ayaana inta badan la hadalhay in uu xagaaga dambe beeca xurta ah ugu dhaqaaqi karo. haddii aynu eegno Arsenal ayaa waxa ka tagi doona Pierre-Emerick Aubameyang iyadoo Aubameyang la sheegaya in wareegyada qaar ay shaacinayaan in xidigaasi uu qarka u saaran yahay inuu isaga tago naadiga kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaana la daalaadhayso sidii ay ku heli lahayd bedelka Aubameyang kaasoo ah ciyaaryahan aad qaali u ah. ugu dambeyntii haddii aynu eegno naadiga kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa isku dayi doonto inay haysato laacibkeeda Neymar kaasoo wararka ay sheegayaan in maalmihii u dambeeyay laga yaabo inuu ka tago naadiga kooxda kubadda cagta ee PSG laakiin wareegyada ayaa shaaca ka qaadaya in naadiga PSG ay danaynayso inay sii haysato xidigaasi ayna ku celiso garoonka ay ku ciyaarto naadiga kooxda kubadda cagta ee PSG.
fadlan haddii aad ku cusubtahay janalkan gambalalka furo like dheh share commentiga waa xaggiina barnaamijkii ciyaaraha waa naga intaas waa catoshiro idile sidaas iyo nabadgelyo sports hormar leh